السلام عليكم ورحمة الله. وعبد الرشيد علي الشيخ محمد وي شعبك الصومالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed maanta inaan sawir idin ka siiyo sawir guud inaan idin ka siiyo xaaladii ay ku sugnayd magaalada Muqdisho bilihii u dambeeyay 1990kii waa muddo hadda 30 sano ka hor banaanbaxyo ayaa hadda rabshado wata oo mataqaana qoryo baridooli ah ka wata ayaa magaalada xamar laga abuulayaa saashal u arkayseen oo banaanbixi shalad u arkayseen ba nin madaxa soo duubtay oo baridolool wata iyo qoryo aka kuwa wata oo shacabkii soo dhaxgelaya iyo shacab la abaabulahayo oo inay banaanbax ka dhigaan xamar si civil war iyo mataqaan dib loogu noqdo xarb ahligii dib loogu noqdo iyo dagaalkii sokeeye ayay xamar ka wadaan nimankan 14 ah oo anu aqaano mataqaan criminal gangiska oo hotelka Jasiira oo xamar degan sidaas awgeed waxaan rabaa marka dhamaantiin shacabka Soomaaliyeed inaan sawir kooban oo taariikh ah oo waxna ku dareen waxna ka dhimayn waxaan alifayaan aan ahayn laakiin u soo taagnaa bilii u dambeeyay 90ka xamar say ahayd ayaan rabaa maanta inaad kaga sheekeeyo saad ugu waana qaadataan oo 10 idin kugu noqoto warkaygan marka ciwaankiisa waxa la yiraahdaa aan maanta idin sheegayo anigoo ah Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed ciwaankiisa waxa la yiraahdaa duufaan salaamu calaykum waxa kale la yiraahdaa duufaan macayr baataniyo waxa kale la yiraahdaa duufaan mahawiya taaniyo waa saddex duufaan way duufaan waa magacayga aanaysta oo militarigu ii bixiyay markaan kuliyada galay kuliyada jaalisiyaad markaan galay sagaa mataqaana magacii la ii bixiyay oo kuliyada iiga baxdo nin laba alifla oo abgaala ayaa ii bixiyay oo BT-dina orosiin jiray orodka noo qaabilsana marka qisaas mar baan ka sheekay maraan channel cajiid ka hadlayay iyo dagaalkii balanbal 82 wixii amxaarada dhex maray yaan aad uga sheekayay magaca duufaan xilligu ii baxay iyo qaabku iigu baxay laakiin hadda waxaan rabaa inaan idin kaga sheekeeyo banaanbaxyada xamar laga abaabulahayo oo qabiilada Soomaalida la kicinayo qabiilada la isku horkeenayo oo dagaalka ma taqaana la rabo in qabiil Soomaali la isugu diro ayaan waxaan rabaa say isku laayaan inaan wixii la joogay bilihii ugu dambeeyay 90kii marxaladii wadanku joogay iyo shacabka xaaladdiisa ugu sugnayd inaan sheekadan yar idin kugu soo koobo qodobka afraad ugu dambeeya waxa weeye war askari hay kufsan weeye askariga la sheegay aniga weeye waa gabar Soomaaliya aniga waxay ugu leedahay askari walaalow hay kufsan bay ugu tiri anigaan bay ugu tiri Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed marka waxay afartaas qodob baan rabaa inaan macnaha idin kugu sheego macnaha waxay ahayd mid ugu horeysay war duufaan salaamu calaykum midii ku xigtay waxay duufaan macayr baa tahay tii ku xigtay waxay duufaan mahawiya tahay tii ugu dambeysana waxay ahayd askari walaalow hay kufsan oo aniga gabar Soomaali ugu tiri afartaas aan rabaa inaan sheekada kugu soo koobo midda ugu horeysay waxa weey duufaan salaamu calaykum waxay ka dhacday Salaam Xamar qofkii xamar aad u kala yaqaan baa garay Salaam Xamar gidaarkeedan fadhiyay kabaan baalashanayay maqrabkiina waa soo dhawaa masaajidka 4 rukun inaan ku tukan rabo maqrabka marka wiil yaro meesha fadhiyay ayaan ku yiri adeer kabahan ii baalash waxay ag fadhiyay markaas 5 qiyaastii 3 ilaa 5 oday oo Soomaali ah oo BBC dhageysanaysa waxay xilligii BBC dhageysan jirtay waa ilaaway maadaama 30 sano ka soo wareegtay ma shanta galabnimo la dhageysan jiray ama Soomaali 12 saac galabnimo mise 12 saac iyo bar galabnimo
miyaa la dhegeysan jiray meelahaasay ahayd ama 11 saac ama 11 saac bar meelahaasay ahayd adigu markuu maqribku soo dhow yaa la dhegeysan jiray BBC-dana Soomaaliya waxa dhegeysan jiray odayaasha anu dadka BBC dhegeysta kuma jirin mana xiisan jirin mana shuqulna kuma lahayn laakiin anoo meesha iska fadhiya ayaan waxaan la soo kulmay markaan kabaha inaan meesha fariisto rabay gidaarka oo kabaha baalashto ba odayaashu way iga horeeyeen meesha saacaday sugayeen BBC bay dhegeysanayeen marka nin duufan salaam calaykum waxa yiri nima iskuulood ahayn oo markii magacan lii bixinay ragga iskuuloodka ahayn ahaa ayaa meesha igu salaamay asagoo socday arkaan oo meesha gidaarka fadhiya war duufan salaam calaykum buu yiri wa calaykum asalaam baa waa fiicanta waa fiicana waa wuu iska sii tagay weliba kuleedii jaalasiyaad oo aan ka soo baxnay baa asaga macallin ahaan loo reebay weli kuleedu ka shaqeynaya ninka marka BBC baa soo gashay BBC-dii waxay sheegtay waa meeshaan u socdaa qodobka nuxurkiisu waa halkan BBC-dii waxay tiri nin gaashaanla sare ah oo anigu maalinkaas aan kaga soo tegey adigu qiyaasii 7 saac 8 saac oo sarada gaashaan aan ku soo arkay oo Maxamuud la oran jiray oo Mahaday ninka xukuma ah militariga Mahaday degan ayay BBC-du waxay tiri anagoo USC ah mid baa u hadlay xamar buu ka hadlayaa iyo maaqal meel kale ka hadlay wuxuu leeyahay BBC aan u hadlahayaa inay markii xamar baan jooga inuu yiri baan u malayn ayaa wuxuu leeyahay ninkaas aan dilnay xalay baan dilnay buu yiri xalay ayaa waxaan dilnay gaashaana sare Maxamuud baan xalay waxaan ku dilnay Mahaday baan xalay weerarnay askari iyo saraakiil baan laynay oo ninkii meesha ugu sareeyay Maxamuud baan yaan dilnay wiir waa Maxamuudka anigu maanta 8 saac aan ku soo arkay wasaaradda gaashaandhig marka beentaas BBC sheegayso ayaa shacabka Soomaaliya loo kicinay waa sida hadda been nimanka 14 oo fadhiya jasiiro ay been uu shacabka uu kicinayaan oo u leeyihiin banaanbaxo dawladda Soomaaliya ha lagu banaanbaxo hal burburiyo oo qabiil iyo dagaalkii dib ha loogu noqdo waan qoslay oo wiilkiina waa iga tagay ninkaan iskuuloodka ahayn uu islaamay waa iga tagay oo hadduu ila joogi lahaa sheekada ninka sheegay inaan BBC sheegayso beenta ka sheegayso inaan ku soo arkaan u sheegi lahaa gaashaandhig waa qoslay keligii waa iska qoslay odayaashina waxa iska sii dhageysteen BBC waxaan ku qoslayna garan mahayaan ano uma sheegin lamana hadlin waxa weeye marka waxyaalaha ama Facebook ka socda ama idaacadaha ka socda sida BBC iyo VOA oo kale shacabka Soomaaliyeed waa inaad ogaataan waa beentaas oo kale gaashaan sare Maxamuud oo aan ku soo arkay gaashaandhiga koodii duhurnimo ama 2 duhurnimo ayaa shantii barkii waxa leeyahay xalay baan waxaan ku dilnay waa xalay la soo dhaafay ayaan Mahaday ku dilnay almost 20 saac mise 15 saac ka hor mise 24 saac ku dhawaad koor baan dilay bay sheegayaan ayagu waa aniguna markaas waxa 3 saac 2 saac bar baan ka soo maqan 4 saac bay ugu dambeysay wax khayr yaa wajigiisa ugu dambeysay hadaa marka waxa la idin ku dagaal gelin leedin sheegaya oo idin leeyahay hadii aad xabad bilowdaan oo dadka qof dilo qabiqay loo dirro jannadii adduunka baa la gelaya 9 kiibay ahayd jannadii adduunka ya jabhadu sheegayeen jannadii adduunka la gelayaa hadii dawladdu sabaral rido SDF baa dadka waxay ku wacdin jirtay jannada adduunka aad galeysaan SNM baa waxay ku wacdin jirtay dadka oo ku been uga awli jirtay jannada adduunka la galiyo hadii sabar la rido USC baa dadka waxay ku mataqaana ku wacyi gelin jirtay hadii sabar la rido waxa weey jannada adduunka la galaya SBM baa waxay dadka ku dagaal gelin jirtay oo ku wacyi gelin jirtay hadii maxamed sabar dawladda la rido jannada adduunka la gelinaya 30 sano ka soo wareegtay jannada adduunka oo ay gashay SDF ay gelisay shacabkeedii aaway SNM jannada adduunka ay sheegi jireen 30 sano ka hor baa siyaa bar dhintay aaway jannadii sheegayeen aaway USC jannada ay sheegayeen oo anigu Salaam Maxamed hoosteeda aan ku dhageystay gidaarkii ahaa waa August markaas aan dhageysanaya BBC-da waa August bilowgeedii weey August maalmii August u horeeyay weey 9kii aaway jannadii USC sheegayeen nimankii SBM oo hadda Kismaayo jooga Cumar Jaas iyo ninkii Axmedoobe iyo odagaan ma taqaan xamar fadhiyo oo hadda hotel Jasiiro jooga Borsor Gandhi oo ninkii sameeyay SBM jannadu sheegay 30 sano ka hor ayuu ku hayay SBM
iyo qabiilkooda wuxuu ku hayay jannadii adduunkaa la gelaya haddii see barra dhaco oo aniga barsoor gaanda idiin ballan qaaday caaway jannadii uu ballan qaaday cali mahdi iyo siilaanyo iyo ay ballan qaadeen ninka la yidhaahdo raggii s d f ahaa waa dhintay hadda cabdullahi inaan wax ka sheega ma rabe raggii kaleo hadda nool oo s d f ka ahaa aaway jannadaa sheegaysaan marka waa janno been awey oo waxba ka jirin wey waxaa weeye marka ninkii isaga ahaa oo sarkaalka ahaa oo iskuloodkan oo kuliyadda macallinka ka ahaa iyo anigiiba maalinkan b b c da ku dhegaystay shaleema xamar hoosteeda gidaarka ah oo kabaa ka baalashanayay odayaashun raadi ila soo ag fariisteen b b c dhegeysanay beenta laga sheegayey oo shacabka lagu kicinayay oo aan ku tukaday masaajidka 4 rukun dhowr bari kadib aniga ninkiiba waxaa naloo qaaday howlgal ah dhuusamareeb ilaa xamar waddada u dhaxaysa inaan waardiyeyno howlgalkii baan isugu nimid aniga asagii sheekadiina markii baan uga sheekeeyey ilaa waxaa ka soo wareegay 3 bari kama badnaynba marka aan howlgalka isugu nimid qaybta 7 haddaba marka aniga ninkii iyo ciidankii markaan baxnay oo aan sii marayno buurana markaan marayno ciidanka anigu howlgelintaan u joogaa ciidankaas oo dhan ninka howlgelinaya aniga wey 2 nin baa iga sarraysa nin ciidanka oo dhan xukuma iyo nin aniga iskulood ahayn oo asaguna abaanduulo ah iyo anoo howlgelinta 3 nin baa ciidanka ugu sarraysa 3 nin anaa ugu hooseeya marka howlgelintaana qaabilsana 2 ninna waa taliye ninna waa taliye ku xigeen haddaba marka ninkii aan iskuloodka ahayn asagana oo salaamu calaykum duufaan iyo oranaya shaleema xamar asna ciidanka qayb ka miduhu wataa markaan marayno buurane ayaa waxaa dhacday duufaan macayr baa tahay tan xamar bay ahayd macnaha midii b b c beenteedii bay ahayd taas midaan ah duufaan macayr baa tahay oo buurna ka dhacday laamiga buurane waa tuulo yar oo ku ooli jirtay markaad mahadday macnaha aad la siman tahay oo kuu dhowdahay jawharna aad ka tagtay ilaa xoogaa 10 kilomitr 5 kilomitr meel ku ooli jirtay oo tuulo ahayd baa waxaa looran jiray laamiga ku taalay buurane markaad xoogaa socoto ilaa qiyaastii 3 kilomitrna waxaad tegaysaa ama 2 kilomitrna mahadday baad yaa tegaysaa askartii ayaa nin bay xoogaa qalad ka galeen shacab ah oo cayr ah oo dhuusmareeb u socda annagu marka shacabka baabuurta shacabka oo kolonyaho fara badan ayaan xamar ka kaxaynaa dhuusamareeb baan geynaa dhuusamareeb qaybta 12aad baa nagala wareegta waa soo noqonaa dhuusamareeb haddana waxaan ka soo kaxaynaa kolonyo kaloo shacab ah 100 baabuur 50 baabuur haddana xamar baan keennaa haddana waan noqonaa waxaan ku qorannahay marka dhuusamareeb iyo xamar inta waddo u dhaxaysa inaan wardiino marka waa askartiiba qaar ii yartay waxay dhaheen ninkan askar wax ka tabanaya waan waraystay wuxuu ka tabanayay waan u xaliyey markaan u xaliyey wuxuu igu yiri intuu qoslay waniyo duufaan waxaan ku weydiiyey magacaawi sar duufaan ma leedaha wuxuu igu yiri niyo duufaan aduu macayr baad waxa ku yiri niyo cayr mi wuxuu yiri niyo ciidankan madax xukuma saaire maya ninka saddexaad baan howlgelintan qaabilsana 2 nin baa iga sarreysa waxaan ku iri marka niyahow qolama tahay buu yiri marka aduu duufaan marka ii sheegtay ciidanka inaad xukumi laakiin ninka saddexaad oo howlgelinta inaad tahay laakiin qolada ii sheeg waxaan ku urniyo anuu muslim baana inta qoslo wuxuu yiri niyahow anuu muslim baana gaal mihi laakiin ii sheeg qolada tahay ina ogaadaan rabaa ninka marka waxaan ku qiyaasay adigu 35 40 meelahaas daadiisa aniguna markaas waxaan jiraa 24 sano anigaan idin sheekeynay garka cadle markaas ninkaana 35 40 meelahaas waa nin hadduu ugu yaraado qiyaastii aan isleeyahay 10 sano 11 sano waa kaa weyn yahay hadduu ugu yaraado haddii kale qiyaastii waxaa weeye waaba nin 16 sano meelaha ku dhawaad iga weyn
waxaan ku urniyo mareexaan baana laakiin muslimka adiidas oo leedahay muslim anigu waa adna muslim waa tahay qabiilka ii sheeg niyo anigu muslimaasan aaminsana mareexaanka iyo cayrka aad sheegaysid anigu waxaan u aqaaniyo magacaye nasab laakiin mabda anigu aan rumaysanahay ma ahan aniga mabda'ayga muslim baa la dhahaa laakiin nasabkaygu waa nin mareexaan cayrka aad sheegaysidna waa magac mareexaankuna waa magac hadda wax ma kaa maqan yihiin maya waxba igama maqan u yiri hadda marka ma faraxsanta waa faraxsana nuun kale kaxawer marka waa ku salaamaya waa yahay buu yiri marka waxaan u soconnaa dhuuso mareeb baan u soconnaa waa markaan xamar ka baxnay waa agos 1990kii wey macnaha waxaan rabaa shacabka wacyigu ku sugnaa markaas dabayaaqadii 90kii shacabka Soomaaliyeed xaalad uu ku sugnaa marka sida qabiilba qabiil macnaha loo irdheysiyay oo qabiilba qabiil cuqdada loo geliyay oo dadka qabiil loo kicinay marka waxaa jiray odayaasha iyo dhalinyarada waxaa jiray farqi u dhaxeeyay waxa ka garanaysaa qaabka anigu u hadlayo iyo qaabka ninka u hadlayo inkastoo laftigiisu oday weyn uusan ahayn oo aniga markaa uu 15 sano duubata iga weyn ama 10 sano laakiin nin 40 ku gaaray Soomaaliya oo hadana nin reemiyo asagu ahaa ninkaas nin reemiyo macawis buu watay oo sida caadi loo yaqaan macawisaha ay generationkayga waxa uu naqaa dadka macawisaha qaat in reemiyihiin baa u naqaana marka sida wacyiga Soomaalidu meesha uu taagan yahay iyo cudurka qofba qof ka qabo ayaa halka ka garanaysaan waan tagnay dhuuso mareeb baan tagnay waan soo noqonnay isla bartii laftigeedii buurana laftigeedii anoo markaa mahaday degan ayay nin oday ah oo markaas leeyahay 60 ilaa 70 u dhaxeeyo ayaa haddana askartii qalad ka galeen anoo mahaday joogo oo miis iska fadhiyo kursi keligii ayaa baroon ordaysa ii timid nin isbatoora baa ka soo degay wuxuu igu yiri taliye niman askar ah ayaa oday ganacsada oo wadada maraya ayay meesha ku qashqashaadaya ina mari baan ku yiri waa soo tagnay si socaan ku yiri inaan soo socdana u sheeg waa tagnay xoogay igu horeeyay odaygii baan arrintiisa u xaliyay odaygii marka wuxuu igu yiri niyow ma askari baa tahay wuuna u jeedaa inaanan askari ahayn oo markaa dee tuutoon baa la iska qabaaye nin boqoriisu garab ku watay darajo lama xirnee markaasaa askarigii isbatoora wuxuu ku yiri war ninkan ciidanka ragga xukumu ku jira ugu sarreeya saa waxaan ku yiri may hawlgelintan joogaayo ciidankan laba nin baa adeer iga sarreysee hadda adiga wax atabanaysa miyaa jira waxaagisoo kuma xallin waa ii xallisuuyi laakiin waxaan ku weydiiyey magacaasa adeer duufaan baa la dhahaa suyiniyo duufaan mahawiyata waa macnaha qodobkii saddexaad wey qodobkii hore wuxuu ahaa beentii BBC-da iyo Shaleem Xamar iyo Agos markaana waxaan isleeyahay qiyaastii ama waa Agos dhamaadkeedii ama waa September bilowgeedii 90kii waxaan ku adeer duufaan baa la dhahaa wuxuu yiri duufaan niyo mahawiyata wadada waxaan ka taaganahay geeskii markii hore aan ka taagnay wiilka cayrka oo 40 jirka igu lahaa ma cayr baa tahay waxaan marka afkanagu marka wuxuu jeedaa dhuuso mareeb wadada dhinaca biixan ka taaganahay markaana waxaan ka taaganahay midigteeda oo odagu wuxuu u socdaa jawar dhanka buuraburdu ka yimi waa isla meeshii waa bartii uu ninkii taagnaa barteedii kala wey oo geeska kala waxaan ku yiri adeer muslim baan ahay anu hawiye mi laakiin nin muslimaan wuxuu igu yiri sidii kii cayro oo kale adeer inaad muslim tahay waa ku jeeda anugu muslim baan ahay laakiin qabiilka Soomaali ka tahay ina ogaada raba isha waa sidii hore oo wiilka cayr ii lahaa wey waxaan ku yiri adeer mareexaan baan ciidankan yaa xukumu yiri saar ciidankan nin baa xukuma waa qolomu yiri waa mareexaan baan ku yiri waa yahay odaygii marka boorso uu tay buu la soo baxay lacag intii tireeda ma qaana lacag kaash ah oo fara badan oo xirma iyo inta cantoobiyay ayuu lacagtaan ho maxay tahay baan ku yiri
وأبال قد بوير وما سنت العتا إسكاي سانكور أنو أذر وحنكور حرانا معنا لالوس نمقاته كوني وحن هذا كوس ميان أنو قبيل كوما سماني أنا الشقاي ذا وحي تهي إنا وضان إلى اليوه شعب كان إلى اليوه وحي قلد قالوا أما شعبه أما أسكر أنا إنا توسيوه مركا العقد هذا ماشي هذا كعشو أضي وأوي مركا أضي مركا أنتاس إيري وإلمي أضي كي هرا عير ما إلمي لكن أضي كان wuxuu yiri asagana ii sheegay anuu ma weydiin laakiin wuxuu igu yiri anuu abgaal baan ahay markuu ii weydiinayay qoladan ahay buu yiri anuu abgaal baan isku ka sheeg adiguna odaga waa ilmeeyay 67 jir weey waxaan ku yiri adeer maxaad la ilmeynaysaa wuxuu igu yiri meeqa sana jirtaa markuu yiri meeqa sana jirtaa kadib uu ilmeeyay waxaan ku yiri 24 sano wuu ilmeeyay marka maxaad la ooyaysaa adeer marka oo la ilmeynaysaa wuxuu yiri niyo adoo 24 sano jira waxaad garanayso baalna yaaban huuy saad wuxuu garanayso oo nin wax garanay oo tahay oo nin fiican u tahay iyo marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto ayaa aad u kala fog buuy waxaan ku raadeer waa la socda in marxaladda Soomaaliya ay meel xul marayso waan ogahay laakiin aniga sidaan ba Ilaahay abuuro sanada kuula hadlayo saasa aniga Ilaahay abuuro waxaan ku raadeer wadada meeshan ka taaganay aniga adigu meesheeda kale markaan u socday dhuuso marab nin joogay oo sida lagu sameeyay askarta ku sameeyeen wuxuu hadalka iga bilaabo macayr baata xataa asagu hawiye iyo habargir kuma hakan ma hawiye taa ima oran ma habargir baata ima oran meesh jilibka ugu hooseeyay ayuu ka bilaabay duufan macayr baata uu ka bilaabo aduguna hadda waxaad ka bilowday maadaama aad ka daaweyn tahay ma hawiye aad ka bilowday ma Soomaali baata iyo Muslim baata wad ka boodda aduguna هذا مركز شعب كالصومالي أو مقلي دونو وعي قف كالصومالي ساسوها معناها BBC دي شيء سدانته أو قضية أنت نجي سنين وركدي بي وحوقات إيرهنتهاي مدبا حمر وحوكليه أو BBC وراي سنة يسا حاليبان أنك USA شبهدنا USA حمر وحي حالة ويرت أما هداي gaashaana sare maxamuud waan dilay oo taliye ciidanka ama haday joogay ahaa militariga magaaladiina ma qabsana anaga iskana uga baxnay odayaashan shanta oo Shalay Maxamed ku dhageystay BBC-da warkaas ay ruu qaban aniguna waxaan ku qoslay sida macnaha beenta aysan odayaashu ogeyn ninkii baan duurkii wasaaradda gaashaana ku soo salaamay oo xogaa sheekaysanay Cornel Maxamuud Allah uu naxariistay hadda inuu dhintay baan la socdaa oo bari wuxuu ahaa nimankan gishishle bari buu ku dhintay iskiisu u dhintay waliba ayaama dhaweyd buu dhintay marka san anigu xoogaal u ahay odayaashan BBC dhageysanay xoog ogaal maahan marka beentii noocaas ahayd oo aan Shalay Maxamed ku dhageystay ayaan haddana buurna kula kulmay ayadoo marna la oranayo duufan macayr baatay marna la duufan mahawiyaata anuguna labadii jeer baan ku joogay Muslim baana kadibna la sii qodqodo leeyahay inaan Muslim tahay ku jidna qolama tahay kadibna aan maraxaan baan kadibna meeqa sana jirta ba oday ii wadi kii kale ima wadi waxa weey marka daba shacabka Soomaaliyeed jabhadahan SDF waxa sameeyay nimankan reer galbeedka 100 jeerna waa idin sheegay hadafka loo sameeyana waxay ahayd in dalka Soomaaliya lagu burburiyo waana lagu burburiyo SNM baa ku xigtay saasa loo sameeyay reer galbeedka baa sameeyay ujeedkuna wadanka soo in lagu burburiyo waana lagu burburiyay Muuse Bixina inuu 3 bari joogay Nairobi asoo ku haya waan go'ayna anaga reer Samatar ha go'ayna reer Samatar waa jilibka ugu hooseeya oo Muuse Bixi ilaa hadda habar awal go'aysa iyo Saacad Muuse go'ahaya iyo habar awal go'aysa iyo maxaan ku raahdaa Rashid Saacad go'ahaya oo wadan gooniya noqonaya ilaa ma jiro Rashid Saacadna og yihiin aniga Cabdirashiidna ogahay Soomaalina ogta laakiin gumaysigii reer galbeedka oo wadanka jabhadaha u sameeyay burburinayay ayaga wali inta soo wacay waxay leeyihiin orod Kenya tago waxa tirada waa go'ayna hadaa marka dadka jabhadaha ahaa waa dad reer galbeed sameeyeen ujeedka loo sameeyana in dawladii Soomaaliya lagu burburiyo 60kii dhalatay ayay ahayd hadeertaana wali inta ka sii nool sida Muuse Biixi oo kale Siilaanyo oo kale Ali Mahdi oo kale
professor Gandhi oo kale mid asagoo dhacaya meelahan aan ku arkay sanadii barkoor guriga hortiisa asagoo dhacaya gacanta la hayo oo la yiraahdo Maxamed Abshir oo Cismaan Maxamuud Saleebaan ma jeertaan oo ninkii balanbal iyo qabtay iyo galdogob ninkii qabtay SDF xarad uu socoto qabtay ninkii watay markii dawladdu sagaashankii dhacaysana wuxuu joogay korontada xamar meesha korontadu joogay korontada xamar 3 berin oo maqnaan jirtay maalin celebrity waa daarnaan jirtay markii xamar xabada ka bilaawtana korontadii motorada asaga rartay oo boosaas u geystay oo ilaa hadda boosaas inay ugu shaqeeyaan baa lii sheegay guriga hoos soo socdo dhacay gacanta la hayo baa ma qasanadii barkoor arkay maxaa shir baa la yiraahdaa waa dadkii SDF am xarada aaday ku hay xamar baan qabsanaynaa way hadda inuu boosaas ku nool yahay malay inuu London ila jooga garan maayo kulli aragiisa waxay ugu dambeysay oday gaaban oo buuran oo 90 hadda ku socdo way soo gacanta la hayo dhacay baa arkay guriga agtiisa maray maxaa Abshir kaas oo kale waa dadka reer galbeedku noo samaysteen oo dalka in lagu burburiyo loo samaystay way beenta BBC sheegaysay iyo midaan macayr baa tahay iyo midaan hawiya tahay waxaasoo dhan waa barnaamijyada loo samaystay SDF SNM USC SBM ay reer galbeedku u samaysteen shacabka Soomaalida beel lagu dagaal gelinayo haddaba marka ma haday baan ka soo tagay buulo bardaan ku noqday buulo orda ma haday waxaan joogay kooton habeen baan joogay oo deganaa haddana buulo bardaan tagay kooton habeen baan deganaa maalinkii la tonaban xamar soo aaday USCdu marka ma hadayna waa soo weerari jireen markasta buulo bardana waa weerari jireen laakiin Ilaahay fadligiisa iyo galadiis kootonkii habeen oo anu aan deganaa maalmood aan deganaa ma haday habeen nama soo weerarin maalin nama soo weerarin kootonkii baro aan buulo barda joogana habeen nama soo weerarin maalin nama soo weerarin Ilaahay fadligiis laakiin rag waa is yaqaanaa Soomaa raggan USCda waa raggii saraakiisha isla ahayn waa rag waas garanaya saraakiisha way is yaqaanaa nin walba ninka kale uu yaqaanaa wuxuu galay iyo wuxuu gudo waliba rag badan oo reer mahadaaya isnaqaanay hore isku naqaanay iyo rag badan oo reer buulo barda ayaa waxay oran jireen markay la kaftamay duufan waa lagu weerarayaa ma taqaana adoo kabaha qoorta ku watay aan ku arkin cararahay oo shacabada rag shacab isnaqaano gaar u dhowr jeer baa idin sheegay inaan ka soo shaqeeyay ma taqaana shabeellada dhaxay iyo hiira inaan ka soo shaqeeyay waa idin sheegay waa dad badan baa iska naqaanay waxaan ku oran jiray mushkilad ma leh ninka ragga sayidka wuxuu yiri aduguba aqlaad leedahay carar maxaa dhaamo haddii la iga adkaado inaan naftayda la cararo taadkada qayb ka mid ah weeyaan oran jiray laakiin rag waa is yaqaanaaye shabeel buu ahaa ninkii ugu dambeeyay oo soo weeraray ma haday markii ugu dambeysay oo aan tagay la ii sheegay laakiin aniga leeyma soo weerarin hawlgelintana ninka xukumo oo xabada ku shuqul aan u ahaa ninka ciidanka u sareeyana ma ahayn ka ku xigana ma ahayn oo iskuloodka ahayn anigan hadlaya oo duufaana baa hawlgelinta ku shuqul lahaa wixii xabada caana iska lahaa marka ishu run bay ku booydaa marka calaa iyo xaal ninkii aan iskuloodka ahayn habeenkii anigu 12 aan ka soo tagay maalinkii 12aad aan buulo barda joogay ayaan xamar soo aaday habeen baan xamar seexday habeenkii ku xigay USC soo weerartay ninkiina waa dileen buulo barde ninkaan iskuloodka aan oran jiray duufan salaamu calaykum halkaas ay ku dileen Allah u naxariisto xamar baan soo galay intaana marka soo gaaran gabadhii dhahaysay ma taqaana askari hay kufsan dhahaysay ayaa markaan xamar soo noqday laba nin oo nin iskulood ahay nin loodkii iga dambeeyay oo saraakiilaha oo saaxiibo ahayn ayaa waxay yiraahdeen waxaan rabnaa maadaama aad Agost tagtay maalmihii u horeeyay November dabayaaqadeena aad soo noqotay waxaan rabnaa duufa inaad nooga sheekayso waxaan dhaha ku soo aragtay Daamay Hotel Daamay waa meeshii ay xabada ka bilaabatay 31 December oo wadadii la oran jiray wadada Mareexaanka oo maxtooyada u dhaweyd halkaas ku yaala wadada wadnaha intaad geedka jacaylka gaarin markaad barbakin ka tagto iyo iskoolkii oo biixda ka qabanayay xoogaa markaad socoto ayaa isgooska Mareexaanka la oran jiray dhinacaas kalena carwo isku darayay dhinacan kale maxtooyada ku darayay hotel Daamay guri ka soo horjeeda
ayaa labada nin ka mid a deganaa ninka kalena xaafad kalu ka yimid ana xaafad kala ka yimid nimankiibaa sheekadii ku daahnay waxaana socodka ka soo bilaabay carwo idko meel ka soo horjeeday oo la oran jiray kuraasyo cad ayaa laba nin oo aan ilmo adeernahay oo aan ku balansanayn baan xoogaa la soo sheekaystay marka waxaan ku uri niman saraakiilo oo aan saaxiibo nahay oo hotel daame kasoo horjeedkiisa guri a jooga ayaan balansano nimankaasan aadaya labadii ninkii isii xigay oon adugu ilmo adeer ahayn isku dhow ayaa wuxuu igu yidhi warniyaho meeshaad sheegayso meeshaas meel saacadda aan la aado maahane yaan lagugu dilina iska dah oo nimankaad aadaysana waayo saar waa hawiye waa laba nin hawiya oo saraakiilaho aan saaxiibo nahay aad buu inta u xanaaqay niyo mawaalanta adiga duufan ma nin waalan baad ma saacaddan baad hawiye aadaysa oo weliba saraakiil hawiye oo laba aad weliba aadaysa oo hotel daami aadaysa inta qosla arniyo waa ku salaam waa ka tegey waa nin markaas konton jir asugu qiyaastii wuxuu ku maskax yahay iyo ku mentality iyo ku fakar labadii aan kusoo arkay buuran oo midna ilaha macayr baata midna ilaha mahawiyaata nimankan waa nin aan isku loodnahay ninna loodkii naga dambeeya oo ilaa yaraantanadii aan mataqaanaa aan iskala soo bilownay leeli sarkaan iskala soo bilownay wey oo weligana saaxiibayn aabbaha iyo hooyaday bay yaqaanaan walaalahay bay yaqaanaan waalidkood baan aqaanaa cidoo dhanba waxaa isku nahay caysho milix baan isku nahay waa niman haddii xabad baa sheegaysaa xataa adduunka o dhan isku yimaado inay dhintaan maahan aniga aan liitaaban karin wey laakiin generation gap baa noo dhexeeyo dadkii markaas xilligaas waa weynaa annagu aan 20 jiradan rag anagaan ahayn 50 iyo 40 iyo 60 jiray dad qabyaaladu googoysay ahaayeen ayaga mabda'oodu qabyaalad buu ahaa laakiin niman dhalinyaro ah oo ciyaal iskuul ah oo saaxiibo ah oo isku kolleeg ahaa oo weliba isla shaqaynaya oo ayagoo nafta isku huray inaan nahay oo anaga qabiilkaanba uusan buugana ku qoran ay garan maayaan labadii nin baan u tagay warbixin baan soo siiyey waxaan indhahay kusoo arkay baan u sheegay sheekadan xataa idiin sheegay hadda idinkaga sheekan oo uga sheekeeyo oo aad duufan macayr baa tahay iyo mahawiya tahay marka waxaan December kaliya xamar joogay kadibna 31 December wayda xabadu waydi bilaabatay waa qaybtii ugu dambeysay oo gabadhii askari hay kufsan xabadii markay bilaabatay oo ay socotay qiyaastii 2 asbuuc ayaa nin abaanduula ka ahaa qaybta 77 oo maslaxa ka hooseeyay ayaa wuxuu ii diray safiirkii Talyaaniga soo saar buu ka soo bixi airportka inuu ka duulaal rabaa wayna soo bixisa adiga duufaan safaaradda Talyaaniga markaan tagnay marka waa in wadooyinka la xiraa hadda safiirkan inuu dhinto lama rabe hadduu dhinto annaga Soomaaliya loo qabsanaya wadooyinkii marka askarta waa inaan control marka wadooyinka iraahdo diyaar marka ma tihiin waa soo bixinaya ninka soo baxbaan dhahayaa safiirka ayaan askartii intaan aan controlaya gabar heer xamar ahay reer xamar oo cado dheer oo qurux badan sayid qurux badan oo cado dheer oo aniga xataa wax badan ee gaabnayn aan wax yar ka dheerahay da ahaanteedana 19 20 aan ku qiyaasay ayaa waxaan ku yiri meeshaan wax shacaba oo qoryo wato iyo macawiso oo reebaadiya ma ku soo aragtay intaysa wax kale oran waxay ugu tiri askari walaalow hay kufsan marka aniga madaxa waa ii xiran yahay waxaan wataa jaakadaan hadda London lagu xaragoodo oo ma taqaana qaaliga ah oo kale oo qurux badan baan wataa marka madaxii intaan xiirtay baan haddana bahal koofi ah oo madaxo dhan qarinaysa indhaha bas ka soo jeedaana waa wataa qorigina garabku igu jiraa marka inaan da yarahay iyo inaan da weynahay wax badan gabadha ma kala aras wajigayga waa si hadda loo arka laakiin ilaa iyo inahan ay koofidu ii qarinaysaa dhinacaan oo hadda garkayana waa xiran yihiin laakiin sankayga wajiga intaan way arkaysaa inaanan aad u da weynayn way u jeedaa oo dhalinyaro ahay marka waxaan ku yiri firi haddaad igu sii saxataa anu nisinaysta ma ahoono ma sinaystanayo ma rabee aduu inaan ku xoogaad ka baqaysa laakiin dad firi igu siiso anu ma rabo nin sina ogolmi iyo nin muslaan ahay shuqulna sina kuma leeyahay waxaan ku weydiiyey su'aashayda iiga jawaab cidna anuuna ku kufsan maya qoladaana askar weeyo anaa xukumo kulama hadlahayaane waxaad iiga sheekaysaa ma soo aragtay kuwa qoryo wato oo laamiga xaggaas fadhiya ma soo aragtay mayay tiri laakiin odagaas iyo habartaas sii socda inaan ka daba tagaan rabaaye
walaal iska kaysiida askartii baa mid ku daray waxaan ku waryaa gabadhan kaxee askartaas oo dhan dhaafi wax la hadli karana male wiil duufan cidna lama hadli karto qof weydiin kara soo leexo waxbaan ku weydiin cid dhihi karta male waxay ceyrsanaysaa odagaa horta in ka daba tagtaara gabadhe saasaan safiirka kusoo bixiyo marka waxaan marka idiin sheegayaa adinka shacabka Soomaaliyeed anu horta gabadh iyo aad baan ula yaabay sababtoo xaaladdu markay meesha maraysay waxaan islaa su'aasha ugu horta gabadhu ku weydiinaysaa waxa weeye askari haydilin xabad hay ugu dhufan bay ku dhihi doontaa ma islaha laakiin gabadhan xabad iyo dhimashada kaga macada ayada waxa uga daran ba dhimashada kufsiga uga daran war askari hay kufsan bay tiri waxa weeye marka waxaan idiin sheegin adinka shacabka Soomaaliyeed dadka wacyigiisu hadduu gabar yahay waa idiin sheegay waa askari hay kufsan way hadduu oday 60 jir 70 jir yahay waxa weeye hawiye miyaa tahay duufan way hadduu 35 40 jir waxa weeye duufan macayr baa tahay way haddii ay qaraabada iyo ilmaadarada ka naxay yihiin waxay ku leeyihiin adoo maraxana niman hawiya oo saraakiil saacadan daami hotel hawu tagi waxaan idinka ilmaamay nimankii saraakiisha markay marayso 12 saac iyo bar ayaa waxaan ku raacasigan raacaya gurigan aad hayaa nimay maca salaama waxay dheen ma ku dhaweynaa meeshan hadda waa taqaan duufan waa la socotaa waa daami hotel way waxa joogo dhan oo saacada meesha macawsaha iyo go'yaasha wata nin walba aakiisi iyo qasnadiisi iyo booskiisi wuu wataa waxaan ku ri raacitaankiina waa laga shakinaya geesaa iga socotaan iga hara hadaan kaligay ahay ninkaas ka socdo maskiinka madow caatada waxba ma taqaana cidna daba gali meesha orda iga hara adinku hay soo raacinina markaan meeshii caasiga soo istaagay dhinacan oo dhan jirdiinooyinka waxaa fadhiya niman konton jir ugu weyn yahay adiga da'deedo kale ugu yar yahay oo reebaadiya macawisa wata go'yaal shaala wata qaar madaxa u duuban yahay ayaa fadhiya anoo caasigii sugaya waxaa yimid nin sacad ah oo aniga eedada dhashay oo bangi ka shaqeeya madaxu gacmaha saartay oo walaalkayba ay baray dhowr bari ka hor meelaha 3 bari 4 bari ka hor war wuxuu yiri ninkii maalinkii barayay Bashir Cali Miro Soomaaliyeed oo ina Cali Miro saar waa ninkii ina Cali Miro Bashir Cali Miro ku barayay oo ninkii abtiga dhalay Soomaaliyeed saar ninkii abtiga dhalay baan oo niyo miyaad waalanta saacadan maxaad ka qabanaysaa meesha soo wajidi nimankan gidaarada fadhiya dhinacan ilaa dhinacan dhan qoryahoodu way wataan waa nimankii USC ah soo inay ku dilaan ka biqimeys war ma waalanta xagee ka timi saacadan walaal saa'irin niman halkan joogo hawiya oo saraakiilo saaxiibanahay ayaa la soo sheekaysanay galabta markaan ka soo tagay carwo idko iyo kuraasyo cad kii adeerkay dhalay muxuu igu lahaa masaacada ama mawaalanta duufan bad hawiye aadaysa niman saraakiil inaan waalanta iyo dami hotel oo orod gurigaaga aad marka wacyiga Soomaalidu saas u ahaa waxaan ku wari walaalle anigu waxaan wataa bastoolad iyo 8 xabo igu jirto hal qasnad kan la jeebkay igu jirta 16 xabaan wataa 16 ka xab hadaan ugu yaraado halin uu wadil oo nimankan qoryaa wato US meesha fadhiya hadaan ugu liito hadaan nin dilo ana dhintana nin isku gooway inaan ayaga dhowr kadib laba saddexna waa dhici kartaa baan ku war marka hadda anigu malakamoodka Ilaahay baa xukumo meeshan hadda aniga wajiga hadda marixaan kuma qorna cid garanaysana male ninkaas ka madow caatada iska lugeynayaan hay adigu hadda warka noo gaagaabay koraaw qayl iga aamus adig meeshii aan taagnaa ayay December maalinta u dambeysay xabada ka bilaabatay wixii ka dhacay baa ka dhacay 30 sano ka soo wareegtay saacadan ba marka adinka shacabka xamar jooga oo xaafada Kaaran degan yaa waxa la idinku xuxinaya benti BBC-da oo anigu shalay maxamar aan ku dhageysay maalinkan kabaha baalashanayay haddii USC ay janno gelinayso dad oo xamar iyo Kaaran dad la abaabulo oo leeyahay xukunka maxaa sabra dil rida janna la gelaya 30 sano soo arkayseen adinka reer Kaaran jannadii leedin geliyana waxay noqotay qad cagaaran in xamar inta la kala dhig ad xagga u soo gudbi weydaan adinkana qof idin soo gudbi waayo Soomaali ah intii idin ka dhimatana Ilaahay u xisaaban tahay intii idin ka dhaawacantana Ilaahay u xisaaban tahay Somaliland waa sidoo kale Puntland waa sidoo kale Jubaland waa sidoo kale Galmudug waa sidoo kale Hirshabelle waa sidoo kale Koonfur Galbeed waa sidoo kale banaadirka joogtaana adinkaaba joogaba waxaan markay idin sheegin duufan salaam alaykum ninka iskuuloodka ahayn iyo salaam xamar iyo BBC-da beenta ahayd iyo duufan macayr baata iyo duufan mahawiya tahay
iyo askari walaalow hay kufsan gabadhii reer xamarka anay igu tiri wax loo xiisa maahan soomaaliyeed nimankan USC da ah oo SDF ta ah oo SNM ta ah oo SBM ka ah oo ku xareysan jasiira oo criminal gangska ah oo ugu daawan yahay Professor Gandhi laba nin oo madaxweyne soo maro oo ma taqaan la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed iyo nin la yiraahdo magaciisa xasan sheekh maxamuud ay ku jiraan waxa idin sheegin shacabka Soomaaliyeed beentii loo sheegi jiray 90kii oo reer hebel halalay la dhigi jiray waa laga soo gudbay waxay lahayd qasaarna waa la soo arkay marka hadda anigu aan ka sheekaynayo salaam calaykum duufan iyo duufan macayr baa tahay iyo duufan mahawiya tahay iyo askari hay kufsan wiilkii dhashay baa maanta 30 jira oo nin weyn ah marka hadda cid been aad ku dagaal gelin kartaan iyo cid been idinka yeelaysa ma lehe adinku naarta jahannamo ha isku sii fogeynina moolkeeda maarta moolkeeda hoos ilaahay ha ka baryinina hoos meelaha ugu hooseeya oo munaafiqiinta halkaas dadka lagu cadaabay inaad ka mid noqotaan ilaahay hadda ha ka baryinina oo ha ka shaqaysanina anu markaas aan leeyahay muslim baan ahay cayr miihi muslim baan ahay hawiye miihi anigu fiiri haddaad igu siiso ma taqaanaa kaa qaadan maayo kumana kufsanayo askartaana ku kufsan maysa gabar yahay ii sheeg halkaas reebaadiyo qoryo wata ma ku soo aragtay qabrigayga yarka iyo aakharada iyo godkayga baa ilaashanayay welina sidii baan u ilaashanaya askarnimadana waa ku shaqaysanayay profession bay ahayd ma raaxaanimadan dee nasabkayga ahayd oo asiga lama bedeli karo aniga aabahayna xaaraan ma cunin awowgayna xaaraan ma cunin xaaraanna liguma soo korin xaaraan sameena aabahay ima oran yooyada waxaa weeye marka waxaa la rabaa qofku islaamnimadiisa iyo qabrigiisa iyo aakhiradiisa inuu ilaashado wax ka weyn ma jirto adduunkaana waxaa lagu keenay inaad camal saalixa oo fiican camal falatid afkaaga iyo adinkaagana ay muslimku ama bini aadamku guud ahaan ka nabad galaan muslimkuna ka nabad galaan haddaba marka 14 naar criminal gangiska ah oo SNM ta ahaa oo SNM ta ahaa oo USC da ahaa oo SBM ka ahaa oo dalkan burburiyay oo ajaanibta iyo mataqaana u shaqeeya wadamada qalaad oo reer galbeedkii carabta ugu horeeyaan haddana 210 wadan adduunka soo biireen oo badan iyo shidaalkan iyo macdantan iyo uraniumkan iyo khayraadka wadankan iyo gaaskan la iska rabo in la iska qaato oo wadanka la dhaco dadka la laayo diinta la bedelo adduunka aad wakiilka u watihiin waxa weeye mid kastoo idin kamid markiisu baqtinaya odagan asaga dhawaan buu baqtinaya odagan 90% wax yar uga dhiman yihiin odagan Gandhi hadda 100 wax uga ma dhiman hadda sii noolaada 20 buu uga dar inuu hadda 90 jira ka soo qaad 20 sano maxaa uga haray 110 sano markuu jiro oo 20 sano kadib buu baqtin waxaan u malayn waxa idin kugu daayar baan u malayn ninkii la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed baan u malayn asaguna hadda konton kama yara asagana konton kala hadaarta ugu dar 100 gaarsi asna konton sano kadib waa dhimanaya marka naartu yeesan idin quwaaxin ibliis naarta meesha ku jira ka gelinina lafiina yarka oo 80 kiilo ama 70 kiilo u tura cadaab kama bixi kartaan ara ilaahayna adduun kama bixi kartaan haddii hadda badda Soomaaliya biyaha ku jira lacag leeyahay kaga dhigana xabad rootiye iyo saxan bariis baa ka raacis iyo shaati suuq qaadatid intaas ba marka xalaal waa ku heli kartaa shaqo xalaal oo rooti xalaal shaqo xalaal oo shaati suuq ka geetid waa ka heli kartaa marka cadaab inaad shaqaysatid wax ka soo gali la arag waa nahal la'aan iyo aqal la'aan iyo damiir xumo weey farmaajo iyo ninkii kale ilaahay u qoray baana doorashada ku guuleysanaya farmaajo hadduu soo noqdana adduunyo gadoonkii ma ahan ama Soomaalidu cadaab gali mahayaan haddii farmaajo 4 sano kale soo noqdo 4 sano farmaajana way idin ka fiican tahay 4 sano Xasan Sheekhna waa ka fiican tahay 4 sano oo Sheekh Shariifna waa ka fiican tahay horay baana maalintii ugu dambeysay la hadlayay yaa waxa idin ku waray abgaalka waxa ku maahmaahan riti dameer uu ka raad qurxoon yahay
oo dameerka iyo ratiga yaa raad qurxon waa mahmaha abgaal weyn 14 criminalkan gangiska oo ku jira jasiira hotelka farmaajo idinka fiican 4 sano oo qabtayna 8 sano oo soo qabateen adiga Sheekh Shariif iyo adiga Xasan Maxamuud oo la isku daray 8 sanaba 4 sano oo farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed uga manfac fiican haddii jabhaduhu mabda ahaayeen oo qabiilada lagu kicinayay mabda SDF iyo mabda SNM iyo mabda USC iyo mabda SBM shacabku waa arkeen hoog iyo halaag bay noqotay wixii laga dhaxlay haddii ay ahayd maqaawimo iyo mooryan diimeed oo adiga aad horkacaysay Shariifa iyo Xasdaar Aweys hoog iyo halaag baa laga dhaxlay iyo wadankii Itoobiya inay qabsatay haddii mooryan diimeedka al-shabaab oo hadda jooga oo qofka arkaan oo Soomaaliya dilhaya calooshooda u shaqaystayaasha ah haddii ay dad horumar gaarsiinayaan shacabku waa arkeen muqaawimana hoog bay ku dhamaatay halaag al-shabaabna hoog iyo halaag bay ku dhamaanayaan wixii laga dhaxlana hoog iyo halaag weey maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku soo haray ma ahayn golihii sare oo 25 oo maxamed sabare uu ugu da'weynaa madaxweynahan uu ahaa gudoomiyaha uu ahaa kamid ma ahayn ilmo yar oo shaqir u ahaa markaas waagaas jabhadihii afarta ahaa oo asaga qabiil ahaan ay ugu xigaan SDF oo daarood ahaana kamid ma ahayn farmaajo SDF na mareexan kamid ma ahayn daaroodka kale ahaayeen oo waliba u badan majeerteen iyo maxamuud saleebaan u badan dhul bahante xoogaa waa kaga jireen leelka sana daaroodka kale kuma jirin adigu nimankan harti bay ahaayeen ama ha ahaadeen warsangari ama ha ahaadeen dhul bahante ama ha ahaadeen majeerteen ha ahaadeen SNM-na waxay ahaayeen nimanka reeshiisa saxaaq USC-na waxay ahaayeen hawiye SBM-na waxay ahaayeen nimankan ogaadeenka ah wixii shacabka Soomaaliyeed beentii ay ku mataqaanaa ku akhrinayeen oo dhagaha uga buufinayeen 30 sano kadib dadkii waa ogaadeen hoog iyo halaag inay ku dhamaatay afarta jabhadood jabhadaas farmaajo kamid ma ahayn wadanka hoog iyo halaag 30 sano geliyay muqaawamadii farmaajo kamid ma ahayn al-shabaab farmaajo kamid ma aha nin askari oo qori iyo xoog iyo inqilaab wata ma aha nin sidiina 14kiina gangi criminal gangiska aan u aqaan oo al-Jazeera ku jirta jaajuus cadow Soomaaliyeed ama jaajuus ajaanibna ma aha farmaajo aabihiisna wuxuu ahaa nimankii la oran jiray laagadii wadankan xornimada gaarsiisay asaguna aqligii iyo wadanimadii aabihiis iyo laagadii buu xambaarsan yahay qulubta iyo maskaxda iyo qalbiga iyo wadnaha Soomaalidana wuu degay qof kasto diin leh iyo qof kasto aqli leh iyo qof kasto wadani iyo qof kasto damiir leh iyo qof kasto shacabka Soomaaliyeed ka naxaya qof kasto sharafta Soomaaliyeed ka naxaya ayaa farmaajo taageersan waa sidaas marka sida markii la dooranayay Soomaali galbeed iyo NFD iyo Somaliland iyo Puntland iyo meesha la yiraahdo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur galbeed iyo Jubbaland caleemo qoyan loogu raxayay qof kasta Soomaaliya farmaajo ugu hay hal wiil baa yiri oo reejo har farmaajo igeeyo laakiin ninkaasu macna hadalka Ilaahay ku abaaray maahna laakiin qof kasta Soomaaliya farmaajo igeeyo ahaa hadda welina farmaajo igeeyo weey saacadan hadda hadlayo oo ah maxaan ku raada December 2020 saan idin sheegana intaan xog ka hayo Soomaaliya caalamka farmaajo waa soo noqonaya insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala hada marka farmaajo waa ninkaas ceebka saliinka oo jabhadii kamid ahayn oo muqaawo kamid ahayn oo al-shabaab kamid ahayn oo dadka gaalada jaajoosiista oo aan kamid ahayn oo waliba qabyaliisaan xataa aan ahayn SWS ah aabiina SWS ah jeelka xamrweyn ugu xirnaan jiray xabsiga dhexe aabiis hadaa marka
xilli Facebook iyo BBC iyo VOA dadka been looga sheega shacabka Soomaaliyeed oo lagu kiciyo haddaad farmaajo ridaan jannadii adduunka leedin geynahaya waxa weeye barnaamijkaasu hadduu 9kii shaqeeyay oo dadku aysan waayay arag ahayn jabhadahana u qabeen jannadii sheegayeen adduunka inay imaanayso lagu arkaayo hadda wixii hoog iyo halaag bay noqdeen iyo naaru jahannam iyo cadaab bay noqdeen waxay laydinka dhaxlay 30 sano marka shacabka Soomaaliyeedna waa idin yaqaana anuna hadda waa idin yaqaana oo ninkaas aad ku dhici weydeen 12 bari u deganaa ma hadda inaad weerartaan baanahay ninkaas aad ku dhici weydeen 12 bari buulabird inaad weerartaan baanahay oo saraakiishin USC idin kugu waaweyn ay fooday soo galin waayeen hadda marka waxa idin sheegaya naga fariista oo wadanka ka daaya dhibaatada oo shacabka ka daaya dhibaatada oo adinku la fihiiniyo aakhiradiina u tura iyo cadaabka godka markii leen gali inaan cadaab idinku bilaabay ilaa iyo ma taqaana qiyaamaha la soo bixiyo barsakha waqtigan dherarka badan oo barsakha noloshan barsakha oo qaburaha ka bilaabanaysa ilaa qiyaamaha ilaahay idin soo saaro intaas qabriga inaad ku cadaabnaataan markii qiyaamo la gaaran ilaahay naarta toos idin geeyo ha shaqaysanine shacabkan dhib intii ugu filan farq ay ku haystaane 30 sano ayay dhimanayeen 30 sano dhiig baxayeen 30 sano ay gaajo leynaysay 30 sano cudur leynayay 30 sano badaha ku dhamaadeen 30 sano muqalas lacagaha inta ka dhaca hadana ayagii dilayay 30 sano qabiil u dagaalamayeen 30 sano ayaa gaalo diyaarad ku duqeynaysay 30 sano direct loo laayay 30 sano raashin dhacay daawo dhacday lagu leynayay 30 sano wixii la gaalaysiin karay inta yaro noo soo hartay faraha ka qaada farmaajana haddii shacabka Soomaaliyeed dal iyo dadba qalbigooda ilaahay farmaajo u burcad u mariyay oo jeclaadeen ma adinka qalbiga wax ka qaban kara qalbiga miyaad wax ka qaban kartaan aniga hadda qalbigayga miyaad gedin kartaan oo farmaajo inaan ku noqdo mucaarad miyaad gelin kartaan ma gelin kartaan way sababtoo qalbi aan ma xukuntaan ilaahay baa xukuma haddii nin reer galbeedku laaluushi karaan ama laaluush ku shaqeeya ahana oo odayga abgaalo lacagta inta soo cantooyay bacda ma taqaana buurana ii dhiibay oo ir lacagtan qaado markaan askarta ka dhiciyay baan ka qaadan lahaa marka waxaan idin sheegin caalamir aabahay Allah u naxariistay ayaan waxaan ka soo qaaday markay xabadu xamar ka bilaabatay ayaan waxaan ka soo qaaday xamar waxaan keen afgooy xamar baan ku noqday 4 baraan ka maqnaa waa soo noqday hadana wuxuu igu yiri markuu arkay Cabdirashiid aaba soo xamar igama soo qaaday afgooy soo imaad keenay ha shaah ma cabin bir 4 bari 100 qof buu la degan yahay 100 qof oo Soomaali ah oo waliba qaraabadayda aniga ah ayuu la degan yahay saaro oo aabe dadkan 100 ka la degan tahay wax shaah ku siiyay ma weydi سيري كل واحد هو باللقى حرام أنا حرام معن إيش شيء محمد الله أبا هنا حرام معن أنا حرام معن أرد حمر كل نقو يكن شاه حلال يكن لما قرابي يهم بان وسوق هذا كنتار سكر أو ساسو يري وا قناوي نكاسة يشيء ماشي نكا ولي سوق كل شيء وحرام ولي معن أرد أوقات كنتار سكر سنكا كنتار كان سكرت أوجي أباها أباها أفر بركدي مالك سناد أي شاء وهو الرئيس هذا مركب واحد يشيء أنا حول حرام أباها يقوم سكرنا على مر وحاس أو حرام سماء مؤرن أنا حرام معنا وحندي شيء المركب أنا هذا النمط قدان كرتان أنت تشريد كوجي ماذا والله عكسين كرتان وما حكي بدي كرتان ميه بدأ الصومالي دي العقل لقنا إن ير أو قلد أو دين الإسلام كقلد كواه أما شرفت هذا قلد كواه من قادنا يميه أو العكس سنة هذا هو حيدي شيء شعب كالصوماليات فرع كلبح إسكداي وعن إذن شيء أدين كشعب كالصوماليات مصلحته
waxay noogu jirtaa annaga shacabka Soomaaliya in waddankeenu nabad noo noqdo in shidaal naloo soo saaro inaan masaajidada dhisano inaan iskuuladana dhisano inaan isbitaalada dhisano inaan wadooyinkan dhisano inaan buundooyinka dhisano inaan sida adduunyada bini'aadamka u nool intaan bari ay noolaanayaan kulli waa dhiman hayaay aakhiro zamaankiina waa soo dhow yahay adduunyada inaan sharaf iyo xayaata ku noolaano oo qurbo joogta iyo qaxootiga ka tagno oo dadka shidaalada la soo baxay waa nala mid dadka wadamadoodu nabadgelyo tahay waa nala mid dadka ma taqaanaa noloshooda ku dhamaystay wanaagga waa nala mid laakiin BBC-dii beenta shanta oday Shalay Maxamed Ruto ku dhageysanayeen ayaa maskaxdiinii oo dhan lagu walaaqay oo lagu wareeriyay haddii taas 30 sano ka hor ahayd maanta idin kaga sheekeynayo goormaa caqligiinu shaqeynaya waa idinka saacadan kaaran ka banaan baxaya goorma ayaa maskaxdiinu shaqeynaysa goormaad xaq iyo baadilka idin kala cadaanayaan goormaa qofka wanaagiina ka shaqeynaya iyo kan idin halaagaya oo adduunkana ka kaxaynayo aakhiriga qabri ku geynaya ama ku dhaawacaya aakhirana naarta ku geynaya ku horseedaya iyo kan adduunyadana inaad ku noolaato camal fiican iyo wanaag iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash aakhirana ilaahay janno ku geeyo ku horseedaya goormaad shacabka Soomaaliya goormaad kala garanaysaan goormaad Faarax Macalin Dawaara ninkan Kenyaatiga oo baarlamaanka Kenyaatiga xukumi jiray oo Nairobi fadhiya Faarax Macalin Dawaara iyo goormaad kala garanaysaan Professor Gandhi goormaad kala garanaysaan kan maslaxadiina ka shaqeynaya kan wanaagiina ka shaqeynaya iyo midka raba adduunka iyo aakhiro labadaba in leeyahay cadaabo adduunkan in dhaafsiyo oo dhimataan ama dhaawac noqsirir ku urura noqotaan aakhirna ilaahay in cadaabo iyo ninka doonahay inaad sharaf ku noolaataan wadan xor ku noolaataan nabadgelyo ku noolaataan sida bini'aadamku u nool yahay xayaato fiican ku noolaataan oo Faarax Macalin Dawaara iyo Professor Gandhi gan jaajuuska Faransiiska oo 90 jirka qabrigiisina asagu iibsaday aakhirna naar u diyaar garoobay goormaad kala garanaysaan goormaad farmaajo iyo 14 kan criminal gangiska oo Al-Jazeera ku xareysan oo jawaasiista ah oo midba wadan ama 5 wadan jaajuuska u ah oo habeen walba telefoon lagu soo hogaaminayo oo cadawga Soomaaliya ku soo hogaaminayaan oo 220 wadan oo adduunka ah 220 marka annaga Soomaaliya la ka reebo 220 wadan baa nagu soo duushay oo adduunka dhan oo Soomaaliya raba badanada iyo shidaalkanaga iyo gaaskanaga uraniumkanaga inay qaataan annagana dhameeyaan qaarna gaalaysiiyaan qaarna dilaan haddaba marka farmaajo iyo waxaad kala garan laadiin 14 kan criminal kan gangiska oo Al-Jazeera ku xareysan baad kala garan laadiin warkaygii maanta waa intaas abshirta Allah na waafajiyo xaqana Allah nagu duwo xaq darada la Allah na tuso aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana idin taariikheeyay haddii aad taariikh wax ku qaadanaysaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.